kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulan waraadka raadiyo Magan wuxuu maantana idinkaga imaanayaa stuudiga dhexe warbaahinta Magan ee ku leedahay magaalada caasimadda Muqdisho qodobada aan idinku weyno barnaamijka kulan waraadkana waxaa ka mid ah gabadheydii waa la ahay waa la dhibaatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ilaa hadda feelkayga wuu busaystay wax la hadlay iyo wax kor u soo qaaday midna ma jirto kiiskii Grant Halil oo dib u soo laba kaclay iyo hooyo qaalib go'aad oo fariin culus u dartay madaxweynaha iyo agaasimaha cusub ee NISA Puntland oo shaacisan ee gacanta ku dhigeen dagaalyahano ka tirsan kooxda Daesh dowladda Jabuuti oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 46aad ee ka soo wareegtay xilliga xornimada ay ka qaateen Faransiiska madaxweynaha Kenya oo sheegay in ciidamadiisa Soomaaliya ku sugan ay sii joogi doonaan sabab uu ku sheegay inay ka cabsi qabaan al-shabaab ay soo laabtaan qodobada kalena waxaa ka mid ah muslimiin badan oo maanta ku sugan buurta Carafa si ay u gutaan rugniga xajka magacaygu waa Cali Maxamed Maxamuud Cali Quusiye waxaan idinkaga soo warramayaa Muqdisho u diyaar garooba dhageysiga iyo la socoshada kula wareedka maanta bushaaro macadka fogaan darsiyeedka iyo tababarka cilmiga saxaafadda ee Magan waxa uu soo kordhiyay koorso cusub oo ay ka mid yihiin barashada kaamirada oo aad ku baranayso sawir qaadista duubista muuqaal cajiib ah sidoo kale in aad ku shaqaysan karto mustaqbalka dhow sidoo kale waxa lagu barayaa barashada farsamada telefishinka idaacadda iyo jarjarista codadka ayaa ka mid ah koorsooyinka lagu soo kordhiyay barashada saxaafadda ayaa qayb ka ah oo hore uga aflixeen arday badan waxaana ardaydaasi ay maanta iskugu jiraan kuwo caan ka ah baraha bulshada iyo kuwo ka hawlgala warbaahinno waaweyn oo caalami ah waxaad ugu soo hagaagi kartaa lambarada kala ah Hormuud eber 612 68 eber 8 ama Somnet eber 68234 ama Somtel eber 622 eber 8 sidoo kale haddii aad Muqdisho ku sugan tahay waxaad soo gaari kartaa xarunta raadiyo Magan ee magaalada Muqdisho ha moogaanin oo noqo arday ka mid dhalin kara higsigiisa iyo himiladiisa saxaafadeed raadiyo Magan waa maganteena raadiyo Magan kuma qorno qofna wahagaag oo maalinimo talaada taariikhduna ku beegan tahay 27 bisha 6 ee June sanada 2023 aan gudubno barnaamijkeena waxaan ku soo qabanayaa dhankii qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan qaali maxamuud go'aad oo ah hooyada dhashay Grant Halil Faarax oo muddo 2 sano ah lagu laayahay gacanta hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa la hadashay warbaahinta iyadoo war cusub ka soo saartay kiiska gabadheeda hooyo qaali go'aad ayaa shaaca ka qaaday in weli ay ku jirto xaalad murugo ah maadaama aysan weli nolol iyo geeri ay ku heen gabadheeda oo ka maqan muddo 2 sano ah waxay mar kale ku eedeyn culusna u jeedisay madaxdii hore ee dalka gaar ahaan taliskii hay'addii NISA ee uu hogaaminayay Fahad Yaasin Xaaji Daahir my life aan soo galo waa gabadhayda dhibaatadeeda weligay ma soo istaagin mana imaanin waa ka warqabtiin gabadheydii waa la ahay waa la dhibaatay dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Fahad Yaasin oo joogay taliska nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Kulane محمد عبد الله آدم كلنا ياسين فري والنقبت درولك كلنا كل انتاس او اشرت جبديده كم مقنطه ninka kale hooyo qaali oo hadalkeeda si wada ayaa shaaca ka qaaday in ilaa ay hadda waxba laga qaban kiiska gabadheeda isla markaana dacwadii u gudbiyeen maxkamadda ciidamada aan horey loo sii wadin taas oo ku tilmaantay wax laga xumaado mad Soomaaliyeedan la wadaagay maxkamadda ciidamada qalabka sidaan geeyay dacwadii maxkamadda ciidamada qalabka sida ilaa hadda feelkayga wuu busaystay wax la hadlay iyo wax kor u soo qaaday midna ma jirto ugu dambeyn waxay fariin u dirtay madaxweynaha iyo taliyaha NISA iyada oo ugu baaqday in mar kale ay kiiska dib u furaan si ay cadaalad u hadasho madaxweynaha xasan sheekh maxamuud mudane xasan sheekh maxamuud aniga dulmanaan ahay qof noolaa iga maqan ilmo la dhalay xanuunkooda waa taqaana gabadhaydii cadeeda iga maqan oo iga hor muuqato geeri in nolol mid waa inaan ku helo madaxweyne si kastaba Grant Halil Faarax oo horey dalka markaasi uga dhalisay xiisad siyaasadeed
oo xoogan ayaa ilaa iyo haatan meel lagu sheegin iyada oo xilalka ugu sarreeya dalka ay qabteen siyaasiyiinta shalay u qaylinaya in cadaalad ay hesho hooye qaali maxamuud guxaad. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgal qorshaysan oo isniintii shalay ka dhacay ee iska sameeyeen ciidamada Puntland ee ka fuliyeen buuraleyda gobolka Bari. howlgalka oo si gaar uga dhacay buuraleyda Camaamo ee degmada Balidhidhin ayaa waxaa lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Daacish. taliska ciidanka booliiska ee Puntland oo saxaafada soo saaray ayaa shaaciyay howlgalka ay qabteen kadib xogo ay ka heleen dadka deegaanka ee ku sugan halkaasi. warbixinta oo ka soo baxday booliska ayaa waxaa lagu sheegay howlgalkan lagu soo qabtay ajaanib ka soo kala jeeda wadamada dalalka Syria iyo Suudaan, kuwaas oo ku jira sargaal sare oo lagu magacaabo Maxamed Ibraahim Daha sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan. sidoo kale waxa uu talisku intaa ku daray in howlgalka ay sii wadi doonaan islamarkaana ujeedkoodu uu yahay inay burburiyaan xarumaha Daacish ka dagaalanta gobolada Puntland ee ku yaala halkaasi. xaaladda ayaa haatan mid degan, waxaana weli deegaanada howlgallada laga sameeyey ku sugan ciidamada ammaanka ee Puntland. dhan kale ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca Daacish ee ku aadan howlgalkaas ee guulaha ka sheegatay dowlad goboleedka Puntland. Daacish ayaa ku xoogan dhulka buuraleyda ee gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland, halkaasi oo inta badan ay ka fuliso weerar gaadmo ah oo ay ku soo qaatay ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland. jamhuuriyadda Jabuuti waxaa ka socda dabaaldegyo lagu maamuusayo 64 guurida ka soo wareegatay markii ay dalkan xornimada uu ka qaatay gumeystigii Faransiiska ee qaybta ka ahaa dalalka Yurub ee qaaradda Afrika ee markaasi isticmaalayay. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo khudbad ku saabsan munaasabada la wadaaga shacabkiisa ayaa sheegay in isbedel badan la geliyay munaasabada ee sanad guuridan ay u dabaaldegayaan 64 guurida ah. waxa uu shacabku ugu baaqay inay xoojiyaan isku duubnida iskaashiga iyo xoojinta dadaalada lagu gaariyo dhabaha horumarka si dalkan dhaca Afrika uu la tartamo wadamada horumaray. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in munaasabada sanadkan 22 Juun ay dhinac taalo maamuuska Ciid al-Adha oo ku beegan Arbacada berita ah oo 28 Juun ah, waxaana uu tilmaamay in maalin kale oo mudan gaarin ay tahay maalinkaasi. goobo kala duwan oo isugu tagaan bulshada dalkaasi Jabuuti ayaa lagu qabtay munaasabada qaarkood oo markaasi ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta jamhuuriyadda Jabuuti. khudbado kooban ay ka jeediyeen dadka waayjooga waxaa xilligaasi oo ka sheekeeyey waxa ay xasuustaan. ku baro saxaafadda si fogaan darsiyeed ama online adigoo jooga gurigaaga ama goob walba. ma tahay qof ku dhiban fikirka dhiibashada dadka hortooda, mise jeclaan lahayd in aad awood u yeelato in aad dadka hortooda ku soo bandhigto waxa aad muujinayso? ma ahayd qof hami sare ka leh inuu noqdo suxufi wax soo saar leh oo xirfadiisa u qarsoon u bandhigi kara bulshadiisa? ma ka mid tahay arday hore saxaafadda u soo bartay balse aanan helin tababarkii uu u baahnaa? intaas iyo inka badan waxaad ka heli kartaa adigoon isdhibin waqti iyo tirsboorna kaa bixin ayaad ku baran kartaa saxaafadda. waxaana kuu fududeeyey tilmaamahaas macadka fogaan darsiyeedka iyo tababarka cilmiga saxaafadda ee Magan. haddii aad danaynayso ka mid noqoshada dufcada cusub ee la diiwaangelinayo, waxaad kala xiriiri kartaa tirsimaha kale ah #682 34 89 43 ama #612 68 91 haddaba noqo baraha qarsoon ee bulshadiisa, taasna waxaad ku gaari adigoo si bayaan ah u barta barashada mihnada saxaafadda. waa tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka kulan wareedka duurnimo ee warbaahinta Magan oo idinkaga imaanaya stuudiyaha Muqdisho. dadka ku dhaqan Muqdisho iyo labada Shabeelle si toos ah ay nooga dhageysan karaan mowjada FM 93.3 megahertz. qaar kalena waxay si toos ah nogala socdaan barahan internetka sida Facebook iyo YouTube. aan u soo laabtay dhankii qodobada, waxaynu farta dareynaa markan madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa si cad uga horjimid qorshaha dowladda federaalka ee ku aadan bixitaanka ciidanka ADMIS ee ururka midowga Afrika, kuwaas oo la filayo inay dalka baxaan 2024 ugu soo furan. Ruto wareysi gaar ah siiyey telefishinka caanka ee France 24 ayaa ganafka ku dhuftay arrintaasi, wuxuuna tilmaamay in laga yaabo ciidankaasi ay sii joogaan Soomaaliya kadib marka uu soo dhamaado howlgalkan oo qaatay in ka badan 15 sano. madaxweynaha Kenya
ayaa sababta ku sheegay al-shabaab laga yaabo inay dib ugu soo laabtaan isla markaana ay qabsadaan dhulka ballaaran ee haatan laga saaray. sidoo kale waxa uu xusay in dalalka safafka hore ee gaar ahaan Kenya, Ethiopia iyo Uganda ay gaareen go'aan ah inay markaasi sii nagaadaan Soomaaliya si loo tirtiro al-shabaab. waxaan go'aansanay haddii aan nahay dalalka Afrika ee safka hore Kenya, Uganda iyo Ethiopia inaan kusii jirno koorsadan. haddii loo baahdana waxaan u aragnaa inay laga marmaan u tahay ama lama huraan ay tahay inaan kusii gudubno jadwalka dhimista si aanay u limin wixii aan gaarnay. sababtoo ah waxaan ka soo baxnay xaalad marka aanan ogoleyn al-shabaab inay dib ugu soo laabaan isla egta ama markaasi masraxa, ayuu yidhi madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. waxaa kale uu intaa ku daray in kooxda al-shabaab ay caqabad ku tahay guud ahaan gobolka, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in laga wado hortago. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dhammaadka bisha Juun ee lagu wado inay ka baxaan dalka 2,000 oo ka mid ah ciidanka ADMIS, taas oo qayb ka ah qorshaha ee bixitaanka Soomaaliya. si kastaba tayada ciidamada dowladda federaalka ayaa ku soo baxday howlgallada militari ee dowladda gobolada ee dalka, taasi oo muujisay in ciidamada Soomaalida ay isku filan yihiin haddii laga taageero waxyaabaha muhiimka ah. ogeysiis raadiyo magan oo dhiirigelinaysa gabdhaha Soomaaliyeed waxay u soo bandhigaysaa fursad tababareed oo ay gabdhaha suxufiyiinta ah ku soo saari karaan warar, barnaamijyo iyo sheekooyin kale. fursadan tababarka waxaa loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed ee bartay xirfadda saxaafadda. sidoo kale waxaa fursadan ka faa'iideysan kara gabdhaha aan weli baran saxaafadda balse muddada ku hanweynaa inay ka dhex muuqdaan bulshada dhexdeeda. raadiyo magan ayada oo dhiirigelinaysa bahweynta hablaha Soomaaliyeed ee suxufiyiinta iyo qaarka jecel inay bartaan mihnada saxaafadda. waxaa tababarkan uu suuragelin doonaa inay ka mid noqdaan howlwadeenada bahda warbaahinta Magan. idaacadda Magan ayada oo ka duuleysa in gabdhaha Soomaaliyeed ay door muhiim ah ka ciyaari karaan ka qayb qaadashada iyo daadihinta barnaamijyada siyaasadda, cayaaraha iyo arrimaha bulshada, ayaa fursadan waxay awood u siin doontaa in gabar walba ay codkeeda iyo waxqabadkeeda hal-abuurnimo ku muujiso warbaahinta Magan. haddaba haddii aad doonayso ka mid noqoshada gabdhaha ka soo muuqda mareegaha raadiyo Magan, waxaad ugu soo hagaagi kartaa lambarada kale ah Hormuud *16891 ama Somnet *682348943 ama Somtel *6226891. sidoo kale haddii aad Muqdisho ku sugan tahay waxaad soo gaari kartaa xarunta raadiyo Magan ee Muqdisho. fiiro gaar ahaaneed fursadan tababarka ah waxaa kaliya ka qayb qaadan kara loona ogol yahay waa gabdhaha suxufinimada bartay ama kuwa jecel inay bartaan. raadiyo Magan waa maganteena. raadiyo Magan kuma qorno qofna. ugu dambeyntiina ku dhowaad 2 milyan iyo bar xaaji ayaa maanta taagan buurta Carafo si ay u gutaan rugniga weyn ee u arkaan xajka. xujaydu waxay buurtan ku gaareen gawaari loogu talagalay inay u tagaan, qaarkood oo saacado badan u geynayay. maalinta Carafo 9 bisha 12aad ee hijriyada waa maalin fadli badan oo muslimiinta looga baahan yahay inay kordhiyaan saacada ducada iyo sidoo kale tabarida Alle maadaama ay haystaan fursad weyn si loogu talagalo markaasi. boqortooyada Sacuudiga ayaa waxay sheegtay inay diyaarisay dhammaan adeegyada ee muhiimka u baahan yihiin xujaajta, waxaana markaasi heega buuxa la geliyay howlwadeenada halka la hubiyo kaamirooyinka lagala socdo dhaqdhaqaaqa dadka. xujayda ayaa duhurka kasoo tukan doona ama kasoo degi doona ee buurta Carafo oo si u gutaan salaadaha duhurka iyo casarka oo loo soo gaabiyey mar qoran ah ay wada dukanayaan iyaga oo markaasi kadib oo kugu laaban doona buurta ilaa gabaldhaca maanta dul saarnaan doonaan. sanadii u dambeeyey waxaa yaraatay xujayda kadib markii uu saameyn ku reebay faafitaanka cudurkii safmarka ee COVID-19 u dhaliyey xayiraada loogu hortegayo cudurkan si aanay markaas usii faafin lana joojiyey xujaajta. guud ahaan waxaan isla soo gaaray dhammaadka kula wareedkeena maanta. waxaan idila socodsiinay anigoo Cali Quusiya, farsamada iyo isku dabariska barnaamijkan Ismaaciil Sutuusi ayaa kaalin ka lahaa. waa bahda Magan oo isku duubnada leh maalin wacan.